إنا لله وإنا إليه راجعون مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن موسى بيهي عبدي isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacbiga Soomaaliland waxa uu dhambaal taxsiyo u diray golayaasha baarlamaanka Soomaaliland wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay alle naxariis jannaha ka waraabiya wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland marxuum Axmed Cabdi Kaahin Casood oo ku geeriyooday maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 23 bisha koowaad 2020 caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaanu madaxweynuhu si gaar ah ugu taxsiinayaa geeridaasi golaha wakiilada Soomaaliland oo marxuumku ka tirsanaa madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyay siyaasi waayo arag ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay qaranka Soomaaliland kana mid ahaa odayaashii kaalinta weyn ku lahaa dib u dhiska dalka iyo nabadeynta shacbiga Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu marxuumka Allah uga bariyaa inuu naxariisto janno ka waraabiyo golayaasha guurtida wakiilada wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacbiga Soomaaliland ee uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiq ka siiyo Abubakar Farxaan Cabdi Abubakar Abka wararka TV